xiriirka kubadda cagtu waa hay'ad madax bannaan oo leh guddi agaasin iyo mid fulineed waa awoodda leh qorsheynta iyo fulinta kubadda cagta dalka Soomaaliland xiriirka kubadda cagtu wuxuu ku jiray xafiis aan xafiiska imika ku jira ahayn uu guuray isagoo ka soo guuray qol yar oo xafiiska wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ay xiriiradii hore ku shaqayn jireen maanta halkan aynu ku sugannahay waa aqalka xiriirka kubadda cagta Soomaaliland xarunta guud ee looga taliyo wuxuu ka kooban yahay dabaqa aad arkaysid waxa ka kala furan intaasoo departmenti ama waaxo xiriirka waxa weeyaan iyo madaxdiisaasi hal abuur bay la yimaadeen hal abuurka kow waxa ka ah in Soomaaliland markii ugu horeysay sanadkii labaad oo xiriir ay ka hirgeliyeen dalka oo dhan liigaga ama waxa loo yaqaan horyaalada oo joogto ah guddiga gudoomiyaha u ahay ayaa ugu horeeyay in garoonkan ay furaan oo habeen ay tartamo ku soo bandhigaan waxa daawadayaal sidaas ku soo gabagaboobay isku aadka wareega sideed dhamaadka runtii waqtigii aan ciyaartoyga ahaa ee sporting marxalad badan buu soo maray waqti xaadirkan marxaladdu ku jiro markaan arkay marxaladda waqtiga aan soo marnay waxaan jeclaysanaynaa inaan dib ciyaartoy u noqdo runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliland soddon sano ka bacda Soomaaliland oo maxay heeday qabatay ciyaarihii hablaha xiriirka kubadda cagta oo qabteen taas waxay cadeynaysaa horumarka balaaran ee baaxadda leh ay ku korkaca ah ay sameynayso jamhuuriyadda barakeysan waxaan uga mahadcelinaynaa xiriirka kubadda cagta in maanta gobol ilaa degmo ay ka qabteen tartamada xiriiradii hore ee ka jiray Soomaaliland waxay ka koobnaayeen Hargeysa qura ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Xaaji Cabdirashiid Ducaale Qambi maadaama xiriirka kubadda cagta maanta ictiraaf haysan internationally inuu buuxiyay baahidii wax walba oo miisaaniyad ama runtii wax kasta oo xiriirka kubadda cagta facilitaad u baahan yahay runtii cover gareeyay شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل البطولة شيل